magaalada baydhabo ee gobolka baay mar kale waxaa ka taagan xaalad culus. ciidankii madaxweyne cabdicasiis lafta garan ayaa caawa tiro gantaale iyo madaafiica ku soo ganay bartamaha magaalada. rajiimkii aadamadoobe waxay isugu tageen madaxtooyada iyaga oo nin walbaahay uu keeblo yurur ku yahay qolkii uu deganaa. daryanka hub culus ayaa la maqlayaa, cabsi laxaadle ayaana ka taagan gudaha magaalada la yidhaahdo ee baydhabo ee gobolka baay. maxay ka dhigan tahay in duleedka magaaladaas uu tago mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaana shub? waa taliyihii hore ciidanka asluubta oo muddo maxbuus ku ahaa muqdisho kadibna joogay nairobi bilihii lasoo dhaafay. taliya shub furimaha dagaal ayuu awaamiir ka bixinayaa, waxaana ay ku ballameen isaga iyo wiilka uu sodoga u yahay ee lafta gareen in 7 maalmood gudahood iyaga baydhabo ay la wareegaan, iyadoo lasoo dhaweynayana lafta gareen uu halkaas kasoo dego mar kale. aadamadoobe ma yahay nin sidaas looga adkaan kara? warbixintaas ayaan dul istaagaynaa. duqeymo shabaabka lagu laayana waxay ka dhaceen hiiraan oo soomaaliya ah. maxaa khasaaraha oo gaaray kooxda? waayo cid la dilay ee la yaqaan ilaa ay hadda yaase geystay duqeyntaas? mawduucan ayaan ku dul istaagaynaa. sababaad u aragtaa mar kale xiisada ka taagan baydhabo? lafta gareen awood ma kusoo laaban karaa? nagu biiri aragtidaada, muuqaalka like saar, siina sheer garee. waa mahadsantahay. waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay waxay noqotay colujoog, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey magaaladaas ay wajahaysa khallaaso iyo foodo isdaba jooga. ciidanku waxay noqdeen trabeel iyaga oo kala jaada, tababar kala duwan qaba, agab noocyo kala duwan oo hubka noocyadiisa markaasi kala jaadka ah haysta. ay hogaaminayaan askar aan isku qido dagaal ahayn, qaarkood kala khibrado badan yihiin. magaaladuba waxay noqotay magaalo iska ishaafalataya. waxaa laga soo wariyey xitaa dhaca moobilada iyo kufsi loo geystay haweenka magaalada. iyadoo xaalku sidaa uu yahay, waxaa ku biiray janan 60 sano oo cimrigiisa ah ku bixiyey dagaalka, oo ciidanka soomaaliya qeybta ka ahaa min dagaalkii 77 ee etoobiya iyo hadda oo aanu marayno 2026 ku jiray ciidanka. waa mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaana taliya shub. ninkan oo khibrad ciidan oo ku filan haysta, islamarkaana hogaamiyey dagaalo horey loogu soo guuleystay mirana dhalay, ayaa gaaray duleedka baydhabo. waxaana la leeyahay wuxuu dhiig cusub ku shubi karaa dagaalka hadda la rabo in aadamadoobe looga saaro halkaas. xogaha la helayo waxay kaloo intaas ku darayaan in taliya shub ay suuragal tahay in markaasi uu qaado tallaabooyin lagu arax jibinayo madaxweyne xasan maxamuud iyo saaxiibadiisa isku raranka u muuqda ee baydhabo kusoo duulay. hadda waxaa muuqanaysa marka in xaaladdu tahay mid culus, islamarkaana xaalka baydhabo uu yahay mid kasii daraya. dadka deegaanku waxay sheegeen inay dareemayaan cabsi, weeraro aroor hore ah oo kuwa argagixisada oo kale ah, daryanka hubka oo habeenkii la maqlayo, ciidanka oo ku noqday iska trabeel, maleeshiyaad aan heybtooda la garanayn oo iska wata hub aada u badan. magaaladiiba waxay noqotay magaalo cabsi iyo magaalo colaadeed. haddii taliya shub iyo sodogii sida ay ku ballameen, ama wiilka uu sodoga u yahay sida ay ku ballameen ay wax u dhacaan, waxaa leeyahay aadamadoobe waa uu ka jafjafan doona halkaas, wuuna isaga tegi doonaa. madaxweyne xasan maxamuudna malaayiin dollar ayuu halkaas ku khasaari doonaa. aadamadoobe mar kale wuxuu dalbaday in fariisin ay ka samaystaan diyaaradaha turkidu leeyihiin F-16 loo yaqaan gudaha baydhabo, laakiin madaxweyne xasan maxamuud midaasi waa ka cagajiiday. xitaa safaaradda turkiga waxay sheegtay in taasi aysan suuragal ahayn. mar kale aadan waxa uu rabaa in xaniyo uusan isagu lahayn lagu difaaco. ogowna markii hore awood aan tiisa ahayn ayaa kursiga lagu saaray, wuxuuna ku leeyahay markaasi awood aan tayda ahayn haddana ha laygu difaaco. oo haddii kursiga xoog lagugu siiyey, yaa waaye cidda xoog kugu sii hayn karta deegaanka ayaa leh. qabaa'ilka deegaanku way kaceen. beesha hariin si cad waxay u taageersan tahay wiilka iyaga markaasi ay dhaleen ama deegaankaba xukumayey ee la yidhaahdo lafta gareen. sidoo kale wuxuu garab ka helayaa reer hooyadii oo ah mareexaan oo dega qeybo badan oo ka tirsan gobolka gado iyo xitaa baay. waxaa la leeyahay abaabulka socda, dhaqaalaha uu bixinayo iyo awoodda iyo enerjiga ka muuqdaba lafta gareen mar kale waxay usoo celin kartaa in xukunkii xoogga looga qaatay uu dib usoo ceshto. waxaanse la ogeyn sida midaas ay ku suurageli doonto. ugu dambeyn, duqeymo laxaadle oo lagu waxyeeleeyey nabadiidka ayaa ka dhacay gobolka hiiraan. dowladda soomaaliya waxay faahfaahin ka bixisay duqeynta dhanka cirka ah oo habeennimadii xalay ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen qeybo kamid a gobolka hiiraan ee soomaaliya, taas oo lagu bartilmaameysaday maleeshiyaad ka tirsan naflacaariga. war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeynta si gaara
ay uga dhacday meel dhowr kilomitir dhanka markaasi kaga beegan deegaanka teedaan, waxaana lagu magacaabaa suulay. 17 kilomitir ayay teedaan u jirtaa, waana deegaan ka tirsan gobolka hiiraan, gaar ahaan dhinaca bari. wasaaradda gaashaandhigga ayaa xaqiijisay in weerarka lagu dilay ilaa 25 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta, halka 18 kalena dhaawacyo iyo waxyaalo ay kasoo gaartay. sidoo kale waxay intaasi ku dartay wasaaradda 4 xubnood oo ka tirsan firxadka maleeshiyaadka inay isku soo dhiibeen ciidanka xoogga dalka, kuwaas oo kala ah magacyadooda aadan maxamed jimcaale oo markaasi kooxda ay u taqaano cabaas, ibraahim aadan daahir iyo sidoo kale aadan abshir cabdi, iyo ninka ugu dambeeya oo nuurow cawid cali, kooxda ay u taqaan magaciisa afgarashaduna uu yahay amiir. dhanka kale waxaa goobta ka firxaday baa layiri xubno ka tirsan kooxda, kuwaas oo dowladdu ay sheegtay inay u carareen ama ay ka carareen hubkooda, jab culusna la gaarsiiyey, dhulka howdka ah ama keymaha ahna ay hore usii galeen. wasaaradda gaashaandhigga ayaa u mahadcelisay saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya ee kala shaqeeya la dagaalanka argagixisada, waxayna mar kale xaqiijisay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan howlgallada lagu baacsanayo ama lagu ciribtirayo kooxaha argagixiso. maalmihii ugu dambeeyey dowladdu waxay u muuqanaysay inay xooggeeda oo dhan isugu geynayso khatarta al-shabaab in laga hortago, iyada oo duulaano cagmarina kooxda lagu qaaday.